daawadayaal kusoo dhawaada saxafi films oo aad uga barateen barnaamijyo aanu ku lafagurno taariikhda ama jilaayaasha dalkaasi Hindiya ka soo jeeda. barnaamijka caawa waxaa miiska inoo saaran jilaaga caanka ah ee magaciisa la yiraahdo Nadamuri Tharaka Rama Ron JR ama Soomaalida ay u taqaano NTR. aktarka NTR waxa uu ku dhashay magaalada Hyderabad 20kii May 1985 waana jilaare India. waa filim sameeye, waa heesa, waa ciyaariyahan xagga ciyaaraha qofka ciyaarka ku takhasusay ciyaarta loo yaqaano Kuchipudi. waxa uu caan ku yahay oo ay dadku ku yaqaanaan Telugu cinema. aabihii waa atoore hore oo ka tirsanaa jilaayaasha Telugu cinema ahaana siyaasi rugcada ah, magaciisana waxaa la yiraahdaa Nandamuri Hari Krishna. hooyadiis waxaa la yiraahdaa Shalini Bhaskar Rao, waxaana awow u ah filim sameeyihii hore ee Telugu cinema ahaana siyaasi hore oo wasiir ka soo noqday dawladihii hore ee soo maray dalkaasi Hindiya, gaar ahaan magaalada ay degan yihiin ee Andhra Pradesh. waxa ay walaalo yihiin filim soo saare Nandamuri Kalyan Ram, waxay ilma adeer yihiin aktarka siyaasiga ah magaciisana la yiraahdo Nandamuri Balakrishna, ahna wasiir laga soo doorto degmada Andhra Pradesh oo hore awowgiis uu wasiir uga soo noqday. waxa kaloo ay qaraabo dhow yihiin Chandra Babu iyo Naida iyo Tharaka Randa iyo Nara Lokesh, waa ilma adeero isu dhow. haddaan waxbarashadiisii aan guda galno, dugsiga sare ee Vidyaranta High School ayuu ka baxay. NTR waxbarashadiisii sarena waxa uu ku qaatay St Maria's College ee magaalada Hyderabad. waxaa intaa u dheer inuu bartay ciyaaraha qofka ciyaarka ee dalkaasi Hindiya looga yaqaano Kuchipudi dancer. NTR sanadku markuu ahaa 1996 waxa uu sameeyay filimkii Ramayanam. filimkaasi oo ay jilayeen caruur yaryar, waxa uu noqday filimkii ugu fiicnaa ee ay jilaan caruur yaryar oo aysan da'doodu qaangaar ahayn. NTR filimkiisii koowaad isaga oo qaangaara waxay ahayd sanadku markuu ahaa 2000, waxaana filimkaasi u dhiibay directorka la yiraahdo SSR Rajamouli, waxaanu ahaa filimka magaciisa la yiraahdo Student Number 1. waxa uu heshiis u saxiixay Ramoji Rao filimkiisi ahaa Nima Jodalani, markaas oo ay da'diisu ahayd 17 sano jir. waxaa kaloo filimkaasi la waday iyadana atiriishada ku cusbeed jileenka ee Ravina Rajput. NTR filimkiisii Student Number 1 waxaa director ka ahaa SS Rajamouli. box office-kana waxa uu ka soo xareeyay guul weyn, waxaana filimkaasi dib u sameeyay shirkado kale oo dalkaasi Hindiya laga leeyahay, gaar ahaan Tamil. sanadku markuu ahaa 2002 waxa uu haddana heshiis la galay directorka aan horay loo aqoonin oo filimada ku cusbaa VV Vaniyak. filimkiisii Adi oo ahaa filimkiisii koowaad ee uu director ka noqdo. filimka Adi waxa uu ka mid ahaa filimada ugu lacagta badan sanadkii 2002 ee filim sameeyayaasha Telugu cinema. waxa uu ku xijiyay filimkiisii Indra, waxaana lahaa filimkaasi Jiran Jeevi. filimkaasi waxa wadhagiisu qaatay muddo ka badan 200 oo maalmood, waxa uuna ka helay NTR taageero aad u badan guulihii filimkaasi uu soo hooyay. kadibna waxa uu saxeexay filimkiisii Allari Ramudi, waxaana filimkaasi lahaa B Gopal. waxa uu ahaa filim uu jiliinkiisa fiicnaa, waxaa ka soo xireetay lacag iska dhexdhexaada markii box office-ka dalkaasi Hindiya uu qiimeyn ku sameeyay. kadibna waxa uu ku xijiyay filimkii uu lahaa AM Rathwan, magaciisana la yiraahdo Naga. inkastoo filimka uu flop ahaa, haddana heesaha filimka ayaa ahaa kuwa aad u fiican, dadkuna ay aad ugu wada qanceen. NTR haddana waxa uu qandaraas la galay directorka SS Rajamouli filimkiisii Simhadri. intaas wixii ka dambeeyay
waa uu ka gudbay filimada uu yaraanta ku jilay. NTR haddana waxa uu bilaabay jiliinka filimkiisii ugu kharashka badnaa waxaana u dhiibay Puri Jagannath waana filimka Andrawala. waxa uu ku xujiyey filim uu lahaa saaxiibkiisii qadiimka ahaa ee Mr. Vianak filimkii Na Aluda. haddana waxaa kale oo uu filim u dhiibtay B. Gopal filimkaasi magaciisa waxa uu ahaa Narasimhahude oo guul badan ka keenay sababtoo ah waxaa filimkaasi waday oo atrisha ka ahayd Amisha Patel, Indra Samira Reddy oo intuba ka mid ahaa jilayaasha shirkadda Bollywoodka ee dalkaasi Hindiya. maadaama ay la jilayeen atrishooyin caanka Bollywoodka ayaa lacag badani uga soo xarootay NTR jiliinka filimkaasi uu sameeyey. NTR haddana waxa uu ku xujiyey filimkiisii Ashok oo uu lahaa Surinder Reddy waxaana la jilaysay Samira Reddy oo horay filim ula soo samaysay Narasimhahude. Samba markii laga reebo 2001 ilaa 2006 filimadaasi waxay u badankoodii kuwa aan lacag badani aysan ka soo xaroon marka qiimeyn lagu sameeyo xagga box office-ka oo qiimeeya dakhliga ka soo xarooda filimada dalkaasi Hindiya. NTR haddana waxa uu saxiixay filimka uu lahaa Krishna Vamsi filimkiisii Rakhi waxaana filimka atrisha ka ahayd Suhasini Munaratnam oo ahayd atrisho reer Tamil ah. filimka Rakhi waxa uu ka mid noqday filimadii ugu fiicnaa ee uu abid sameeyo jilaaga NTR haddana waxaa filim u dhiibay saaxiibkiisa SS Rajmouli waana filimkii saddexaad ee uu sameeyo directorka Rajmouli. intuusan filimka jilin ka hor waxa uu sameeyey aalamiinto badan waxaana miisaankiisa uu ka dhimay ilaa iyo 20 kiilo iyadoo markii hore uu ahaa 94 kiilo. waxaa filimka la daadihinaysay labada atrisho ee kala ah Mohan Babu iyo Khushbu. filimka jiliinkiisa lama amaanin laakiin muddo kadib waxaa filimka sumcadiisii kor u qaaday oo ku soo daray 10kii filim ee ugu sarreeyay filimada Teluguga. heesaha filimka oo ahaa kuwa aad u sarreeya waxaana heesaha ka mid ahaa filimkaasi ku jiray I Go Crazy, 123 Ninoka Kantari. isla sanadkaas 2009 waxa uu ku biiray xisbiga Telugu Desam Party TDP doorashooyinkii guud ee dalkaasi Hindiya ka dhacay. daawadayaal weli waxaynu bartanka uga jirnaa filimadii uu sameeyey atooraha caanka ee NTR. waxa uu haddana ku xijiyey filimkiisii action comedy-ga ahaa ee Aduras. waxaa ka soo xarootay lacag gaaraysa markii kharashka la geliyey iyo dakhliga la kala jaray lacag 500 milyan. NTR waxa uu sameeyey filimkiisii romantiga ama qisadii jacaylka ah ee ku saabsanaa ee Barandabanan waxaana filimka director ka ahaa Vamsi Baidebali waxaana producer ka ahaa Dilraja oo ku caan baxay filimada jacaylka ah. waxaana filimka la jishay Kajal Agrawal iyo Samantha Ruthu Barbu. waxaa filimka uu ku guuleystay waxaana uu ka mid noqday filimada ugu dakhliga badnaa sanadka markuu ahaa 2010. wuxuuna filimkaasi jabiyey rikoorkii u yaalay filimka adeerkiis ee Simha. waxaa kor u kacay sumcaddii uu Tollywoodka ku lahaa ninka la yidhaahdo NTR guulaha isdaba jooga ee uu sameeyey. atooraha NTR waxa uu ku xijiyey filimkiisii Kantari. director waxaa ka ahaa Ramesh waxaana ku baxay qarash gaaraya 420 milyan. waxaana filimkaasi la jilaysay Ilana Dikrus oo la samaysay filimkeedii labaad. NTR waxa uu ka mid ah filimadiisii Damu waxaa director ka ahaa Boyolati. waxaa filimka la waday Trishna Krishnam iyo Karthika Nair. waxa uu haddana bilaabay jiliinka filimkiisii Badsha ee uu iska lahaa Sirunu Vaitla waxaana la waday Kajal Agrawal. Badsha waxa uu noqday filim super hida. 2013 NTR waxa uu sameeyey filimkiisii daraamaha ahaa ee Ramayaya Vastavaya
waxaana director ka ahaa Hari Shankar. Filimka waxaa la waday Shruta Hassan oo la jishay filimkeedii ugu horreeyay iyo Samantha Rath Prabhu oo la sameysay filimkeedii labaad. Inkastoo sheekada filimka ay ahayd mid qadiim ah, haddana wuxuu ahaa filim iska dhexdhexaada markii lagu qiimeeyo oo box office-ka uu ka soo dhammaaday. haddaan dib ugu laabanno samayntii filimkiisii Badshaa, waa filimka keliya ee la oran karo guul ayuu ka gaaray maadaama lagu casuumay tartan filimeedka loo yaqaano Osaka Asian Film Festival sanadku markuu ahaa 2014 oo lagu qabto dalka Japan. NTR waxa uu sameeyay sanadku markuu ahaa 2016 filimkiisii Nanaku Baramathu, waxaana director ka ahaa Sukumar. isla sanadka 2016 waxa uu sameeyay filimkii Janath Girish ee uu directorka ka ahaa Koratala Siva. NTR waxaa filimka la waday Mohanlal, waxaana la sii daayay September 1 sanadku markuu ahaa 2016. haddaynu wax ka taabanno dhanka siyaasadda, NTR waxa uu ka mid ahaa ololayaashii xisbiga Telugu Desam Party doorashooyinkii guud ee dalkaasi India 2009 bishii Abriil ilaa bishii May socday. 26 Maarso xilli ay ku guda jireen ololihii doorashooyinka ee dalkaasi India, ayagoo ku soo aadanaa magaalada Hyderabad, gaariga ay wateen noociisu uu ahaa Saaf oo uu rakaab ahaan u soo raacay ayaa shil galay kadib markii ay isku dhaceen gaari kale meesha la yiraahdo Khamaam. isaga iyo intii la socotayba gaariga ayay bannaanka uga daateen, waxaana soo gaaray dhaawacyo kala duwan. waxaana dhaawacyadii loo qaaday Krishna Institute of Medical Science ee magaalada Sukudrabad, halkaasi oo uu ku sugnaa NTR intii uu ka soo kabanayay dhaawacyadii ka soo gaaray shilkii gaariga ee uu galay. sanadku markuu ahaa 2009 waxa uu sheegay NTR inuu ugu deeqay wasaaradda gargaarka iyo caawimaadda dalkaasi lacag gaaraysa 20 lakh xilli ay jireen fatahaado dalkaasi ka dhacay. sanadkii 2013 xilli ay ku guda jireen sii deynta filimkii Badshaa, waxaa ku geeriyooday taageerayaashiisa mid ka mid ah isbuurasho ay sameeyeen goob ay dadku isugu soo banaanbaxeen oo filimka lagu soo bandhigayay. NTR waxaa la socday filim soo saarihii Badshaa Bandala Ganesh, waxaana ay ugu deeqeen 5 lakh. NTR waxa uu ballan qaaday inay ka warqabi doonaan qoyska uu wiilka yari ka geeriyooday. sanadkii 2014 NTR waxa uu sheegay inuu lacag gaaraysa 20 lakh ugu deeqay hay-adda CM Relief Fund si ay wax uga qabtaan dadka deriska la xanuunyada Cyclone Hudud ee magaalada Andhra Pradesh oo ah magaalada ay ka soo jeedaan qoyskiisii. haddaanu wax ka taabanno arrimaha qoyskiisa iyo xaaskiisa, NTR waxa uu 5 bishii May 2011 guursaday gabadha la dhaho Lakshmi Barnathi. arooskooda waxa uu ka dhacay High-Tech Exhibition Center ee magaalada Madapur. waxa uu jooga hal wiil, waxaana la dhahaa Abhay Ram. daawadayaal, intaas ayaynu ku soo gabagabaynaynaa taariikhdii koobnayd ee atooraha NTR ee jilaaga ka ah Telugu Cinema ee dalkaasi Hindiya. daawadayaal, ha moogaanina inaad tidhaahdaan Saxafi Films subscribe si aad markasta ula socotaan barnaamijyada aan idiin soo gudbinno. innagoo isku duuban oo bahda Saxafi Filmsna waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo is arag dambe oo xiiso leh.